بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، أحبكم في الله. ومسلسل كينوس وسعودي كساب سنة قصوينك صحيحة كسو أروري صحيحينك بخاري ومسلم. xalaqadan ama fadhigani waa xalaqadii ama fadhigii 15aad waxay la magac baxday xalaqadani faynuus tadami. qisaduna waa sidaan soo socota. abu hurayrata radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu wa ardaah wuxuu noo soo wariyay in uu yiri nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ayaa waxa u yimid dad aad u dhibaataysan oo marti ah ayaa u yimid. kadibna saxaabadii way kala qaateen, qof buu qaatay. nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxa ku soo hagaagay hal nin ama hal saxaabi ayaa ku soo hagaagay. kadibna qof khaadim ah ama saxaabada qof kamida ayuu nabigu u diray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sagaalkiisii guri ee nabigu uu lahaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. wuxuuna ku yidhi hiblaaye u tag, waxaadna soo weydiisaa bal guriga caawa in ay casho taallo nin marti alla siiyo. laa ilaaha ila allah huwa rasuulullah. qofka saas leh ee sagaalkiisa guriba jawaab yaab leh ay ka soo laaban doonto, bal si fiican qalbigiina iyo dhagihiina ugu dhagaysta. kadibna xaalkeenna u bandhiga iyo adduunyada sida maanta naloo siiyey. gabadh walba way fariin bay u soo fartay ninkii rasuulka ahaa ee la diray, waxayna ku soo tidhi fariintan: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. waxaad ku dhahdaa bay ku tidhi rasuulka, waxaad ku dhahdaa sal ll salam, ilaahayga xaqa kula soo diray baan ku dhaartaye gurigani caawa ma yaallo wax ka badan biyo madow. falaa ilaaha ila allah. mid labaad bay yuu aaday jawaabtaas oo kale, mid saddexaad ilaa 9 guri oo uu nabigu lahaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. mid walba wuxuu la soo noqday wiilkii loo diray ama qofkii loo diray: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. sagaalkii gabdhood markii ay fariintaas ayada oo mid og ayn jirin ay soo direen, ayuu nabigu markaa saxaabadii dhex istaagay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. wuxuuna yidhi: war caawa ninkii igu soo hagaagay ee martida ahaa waan u waayay wax casho ah, 9kii guriba waan oga waayaye habeenkan yaa iga qaadaya ninkan martida ah. saxaabi saxaabada kamida oo reer ansaareed baa istaagay, wuxuuna yidhi: aniga rasuulki ilaahayow, aniga ayaa kaa qaadaya. uxibukum fi llah. ilaahay daraadii baan idiin jeclahay ayuha alaxibatu fi llah. wallaahi mar kasta oon kelimo aan jeedinayo oo aad qalbigayga aad ku soo dhacdaan, qalbiga waxaan ka dareemaa wax ka macaan malabka iyo sokorta oo ah alxubbu fi llaahi oon muslimiinta u qabo. saxaabigii wuxuu yidhi: ana yaa rasuula allah, aniga ayaa ninkaa caawa qaadaya. ma kula tahay inuu gurigiisa ku ogaa intaas oo anwaaca oo raashina oo bariis ah oo hilib leh oo caano leh oo masago leh oo qudaar leh inuu ku og yahay ma u malaynaysaa?
waxaan sugaynaa bal jawaabta guriga markuu tago xaaskiisu ay dhaxdo kadibna saxaabigii iyo waxaa israacay martidii ayaa israacay ninkii guriga lahaa markuu guriga tegay ayuu haweenaydii wuxuu marka horeba ku bilaabay oo yidhi si uu ogaga naxsado xoogaa waxna ooga soo daadsado hadday xoogaa is adkayn lahayd wuxuu yidhi karaamee heblaayo karaamee martida nabiga sallallahu alayhi wasallam si uu u dareensiiyo in martidani nabigu soo dhiibay oo qof nabiga ka socda uu yahay sallallahu alayhi wasallam su'aashii uu weydiiyey waxay noqotay wax casha maxaa caawa noo yaala jawaabta ay gabadhu bixisay waxay noqotay wax casha oo guriga yaala lama arko markii laga reebo cashada caruurta waa taqaanaan caruur yar yara waxa casha looga dhigo ma boorash ba ma wax yar oo ma taqaanaa jilicsan ba waad garan kartaan guri uusan cunto oolin hooyadu waxay ilmaheeda u walwalaaqi karto wuxuu yahay qof walba wuu garan karaa kadibna wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa caruurta bal xoogaa naga ciyaarsii kadibna siix ya salaam markuu ninka martida soo galo gurigana marka caruurta markaad naga seexiso si aad u seexiso waxa weeye ninka gurigan soo gelinaya de nolol ma jirine wuxuu yidhi markaa faynuusta dami waa meesha aan qisada halku dhega aan oga dhignay faynuusta dami wuxuu yidhi ninku markuu soo galo martida faynuusta dami kadibna waxaad soo qaadaa horta asaga raashinka oo dhan u rid waxaan ciyaalku cuni lahaayeen asaga u rid maxaa soo haray aniga iyo adiga wuxuu yidhi saxan iyo qaado beenbeen anoo soo qaad beenbeen waxaan ka wadaa yacnaan waxba ku jirin si aan u moodsiino ninka inaan machaqlaynayno oo annagana aanu cunto cunayno si uu ninku cuntada ooga dhergo oo u yidhaahdo carruurtiina la seexi oo casheeye labadii kalena dee wakuwaa geeskaa fadhiya oo dee cuntaynaya dee intan adigayna kaa badnayn haweenaydii faynuustii bay u istaagtay oy damisay raashinkii bay soo qaaday ninkii bay u wada riday odaygeedii iyo ayaduna saxan iyo wax maran bay isku qabqabsiiyeen iyo majaq aan jirin waagu ninkii sidii buu ku seexday waagu markuu bariyey ayuu nabiga u tegay saxaabigii baa nabiga ku kalahay ama u tegay sallallahu alayhi wasallam nabigu asagoon hadlin buu ninkii markuu arkay ilaan waxyi baaba xalay soo degay oo jibriil baaba warbixintaba si kaash horay nabiga ugu sii dhiibay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yidhi qad cajaba allahu min saniicikuma ilaahay wuxuu la yaabka ilaahay kayfiyadiisa ma naqaan ilaahay wuxuu la yaabay xalay waxaad samayseen oo aad ninkii martida idiin ahaa aad xalay ku samayseen riwaayo kale waxaa soo degtay قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة taasna waa la sheegaa inay laba jeer soo degi kartana waa suurtagal inay soo degtay waqtigana waa suurtagal calaa kulli xaal qisadani waa qiso macaan oo aad iyo aad duruus badan baa ku jirta xagga martida noloshii nabi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam gabdhihii hore iyo say baariyiinta oo ahaayeen iyo siday raggooda iskugu kalsoonaayeen uxibukum fillaah ilaahay daraaddii baan idin jeclahay inta aanu kaga kulmayno xalaqada 16 waxaan idinkaga tegayaa uxibukum fillaah wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh